marka waa caasimadda gobolka Shabeellada Hoose waa magaalo xeebeed fac weyn oo dhacda koonfurta Soomaaliya waxa ay 90 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga beegan tahay caasimadda dalka ee Muqdisho marka muddo sanado ah oo la soo dhaafay waxa bariisaday oo gacanta ku hayay kooxda xagjirka ee Al-Shabaab ka hor intii aysan ka xoreyn ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM magaaladani waxa ay soo martay xasilooni la'aan iyo colaado beeleed oo u diiday in dadka ku dhaqani ay nabad ku ladaan hadda waa ay ka bedelan tahay sidaas marka cadeey waxa ka jira nidaam dawladeed iyo nabadgelyo la isku haleyn karo magaaladu waxay si joogto ah u yimaadaan mas'uuliyiin dawladeed iyo wufuud kala duwan waa madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen iyo mudanayaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah iyo siyaasiyiin kale waxay hordhac u yihiin wafdi ballaaran oo hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre oo booqanaya marka cadeey waxay diyaar u yihiin inay dawladooda iyo madaxdooda ay soo dhaweeyaan si aad u weyn ay dadka marka ugu soo baxeen soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha in muddo ah dadkani si xor ah uma marxabayn mas'uul dawladeed marka cadeey ma nabadba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanadkii hore sidan oo kale u soo booqday reer marka taas oo bila u ahayd in dawladdu mudnaan weyn siiso amniga dib u heshiisiinta iyo wadajirka bulshada marka magaaladu waa xorowda Soomaha magaalada waxa xoreeyay idinka iyo ciidanka qalabka sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la'aantiin magaalada xor ma ahaateen maxaa yeelay waad la shaqayseen gacan ayaad siiseen waad isgarab istaagteen ajar iyo xasanad Allah idinka siiyo reer marka waa dad wanaagsan waa dad wadaniyiin ah waa dad dawlad jecel waxa ay rajo weyn ka qabaan in magaaladooda ku soo noqoto sidii ay ahaan jirtay waa magaalo ku caan ah dalxiiska kalluumaysiga iyo beeraha dawladduna waa ay ballan qaaday in ay xoogga isugu geyn doonto sidii dhinacyadaas oo dhan loo horumarin lahaa magaaladan waxa loogu talagalay inay ahaato magaalada dalxiiska adduunyada dhan ay dadku isaga yimaadaan magaaladan waxa loogu talagalay magaaladii ganacsiga oo Afrika iyo Aasiya wax looga dhoofiyo magaaladan waxa loogu talagalay inay ahaato astaanta taariikhda ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan idinkugu yimid inaan idin sheego inaan diyaar nahay inaan intaas idinkala shaqeyno inaan dib u soo nooleyno marka waxa ay dhacdaa dhul taag ah waxa ayna dacalka ku haysaa badweynta Indiya waxa aad ugu dhow dhul beereed uu maro webiga Shabeelle waxa magaalada soo gala laba dhabe oo midkood dhanka xeebta ay ka yimaad si dhawaan looma oga tirada dadka ku dhaqan magaalada marka waase magaalada ugu dadka badan gobolka Shabeellaha Hoose maadaama ay tahay caasimadda gobolka dhowrkii sano ee ugu dambeysayna nabadgelyada iyo xasiloonida darteed waxa soo laabanayay dad badan oo magaalada uga tagay colaado iyo Al-Shabaab dartood marka waxa ay ka kooban tahay dhowr xaafadood waxaana ka mid ah xaafadaheeda Buulajaan Buufow Lumbardi Beetras Elbashirow Awbaale Saraha
xaafad ruusiya sheekh abroone iyo obasiibo dadka magaalada waxay u badan yihiin kalluumaysato iyo beeraley waa kalluumaysato isu diyaarinaya in ay soo jilaabtaan kalluunka ayagoo adeegsanaya doomo yaryar tawanayo doomood oo noocan ah ayaa subax kasta ku kalahaa xeebta marka waxa ayna la soo laabtaan kalluun noocyo kala duwan ah kuwa oo lagu iibiyo suuqyada magaalada si aad ah ayaa magaaladan looga cunaa kalluunka oo qiimihiisa aad ayuu u jaban yahay alxamdulillah horta badda hadda aad u fiicantay xilligii waxaa la soo galay oo shiwaarka wax helitaankeedana kale xilli waa yareed waa jiraa laakiin hadda waa laga soo gudbay wixii hadda waa laga gudbay maanta alxamdulillah hadda kadib waxaan sii rajaynaynaa khayraadka ilaahay waa waasac waa inuu ilaahay insha Allah isku sii baday waayahay waxa iiga warata marka noocyada kalluunka ugu badan ee dadka marka ay soo qabsadaan xilib badda yani kalluunku xilli oo sidoo u kaliyin waaye hadda kadib insha Allah kalluunkan oo jaadarka la iska weebay maaragtay kaasna insha Allah aan rajaynaynaa inaan heli doono si ilaahay karaana ma jira marka xilli ay kala fiican tahay badda wax laga helo xilliga uu fiican waa xilliga hadda soo haay oo kuleelaha soo galaya marka xooggeeda inta badan dadka badda ku shaqeystaa dhalinyarada inta badan boqolkiiba 60 ama 70 badan ay ka qaraabtaan ilaa ganacsiga hadda ugu xoog badan badan waay dhalinyarada inta kale baa ogta magaalada hay'adaha ma joogaan badiyal saaga xamaashta suuqyada 12 saac dad waxa ka imaadaan 6 saac dad waxay ka imaadaan 4 saac dadna 5 saac dadna adi ilaa iyo qof sidii wax soo helo qofna hadoo soo quursado iska soo baxaa magaaladu waxa ay mar lahaan jirtay dekad shaqaysa taas oo sahli jirtay in badeecooyin badan dhanka badda ay uga yimaadaan oo waxna laga dhoofiyo waa haraadiga marsadii markaa oo aan hadda shaqayn laga soo shaqaysiin karo kani waa taag ku ciladoobay xeebta marka xilli hore marka waa magaalo dalxiiska ku wanaagsan waxa ay leedahay qurux dabiici ah iyo xeeb nadiif ah marka laga soo eego dhanka badweynta Hindiya ayaa dareemi kartaa bilicda magaalada muuqaalka dambe ee daawada laga dambeeyay idin muuqda waa xarunta gobolka Shabeellada Hoose marka caday magaalada marka caday waa magaalo xeebeed waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dhacaybaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya gobolka Shabeellada Hoose kastoo magaalooyin badan oo xeebaha uu leeyahay haddana marka waxa ay ahayd xarun dalxiis sababta ay ku noqotayna bilisamaadkii ilaa xataa markii uu jiro oo xarun hay'ado badan ay u ahayd waxa magaalada marka sidoo kale ay tahay xarunta ganacsiga koonfur galbeed Soomaaliya marka waxa ay ka mid ahayd goobaha deked ahaan macmal loo isticmaali jiray intii dalku burburku ku jiray oo laga dhoofin jiray muuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah soo kalena ay badeecooyin kala duwan ka soo degi jireen magaalada marka caday waxa ay hadda diyaar u tahay inay dib uga soo kabato dhibaatooyinkii sanadihii la soo dhaafay soo maray dhismayaasha faca weyn ee la dhereersan xeebta marka ayaa muujinaya taariikhda fog ee magaaladan leedahay marka waxay leedahay taariikh qadiim taariikh dheer ay leedahay waxayna soo martay marxalooyin kala gedisan waxaana la aasaasay magaaladan qarnigii 6 miilaadiga waxaa laga joogaa 1300 sano magaaladan markii la aasaasay waxaa deganay dad yar oo aan badnayn waxay ku koobnaayeen sarahan yar musawirkeeda taa waa haynaa muddo ka bacdi dadkii waa soo degeen dad badanaa yimid waa soo degay laakiin dadkan say ku yimaadeen soomaalida macnaha weli taariikhda ma u qorna anaga
taariikhda abka ab aan qori jirnay dadkan marka degan dad oo doonku imaadeen oo soo degeen ma aha dadku waxay ka imaadeen guuraaga waay dadka imaadeen waa soo guuri jireen kor ay ka imaan jireen soo berberay dhulkaas ay ka imaan jireen si u socda nin walba meeshii ku habboon uu degi jiray sidaas ay ku soo degeen ayaga oo laba go' wataan marka caday macnaa banaadiriga lagu sheegay laba go' ay wateen markii horeba magaaladan ayaa caan ku ahayd dalxiis wax soo saar iyo xirfado kala duwan ka hor intii aanay saamayn burburkii iyo colaadihii sokeeye ee dalka ka dhacay waagii hore siyaad barre ka hor furdadan dadka ganacsiga ay ku tiirsaneed waxbaa la dhoofi jiray talyaanaa joogay oo wadooyinka hata asaas sameeyey furdada waa noo dhisay si fiican uu noo dhisay markaasaa waxay bilaabatay dhaqdhaqaaq oo dhoofin iyo keenid iyo furdadii ka shaqay jireen 500 ilaa 600 qof waxaa dheereed marka kaawooyin dhaqaalaa jirtay waxaa mig factory jiray hilibka meesha gasaca lagu sameeyo fishka factory jiray waxaa jiray factory banana fika waxa la ripe banana la sameey jiray macna waa la gasacay jiray waxaa la sameey jiray doomana lagu suubi jiray inta magaaladan dhowr macnaa factory ka jira dharka alindiga inta ku bilowday inta laga sameey jiray intaas iyo in ka badan jiray waxaa jiray kabasiin in yiraahdo meeshaas shalambood waxa uu furnay garaash weyn 9 qof inta ka bixi jireen subax walbo 500 600 waxay u soo fijiraan furdada kaawooyinkan laga shaqay jiray dadka mis arki jireen waxay ahaayeen dad mashquul ah shaqaday ku mashquul ahaayeen nin buu ridso raadsanay magaaladan saas daraadeed waxa la yiri minin Usman martidii moodo munaafiq waay markii hadii aad dhaaftid inta aad dhaaftid baadii dhulkaas la ko laakiin inta marka aad soo gashid wax walba ayaa la shaqaa burunta wax walba burunta hadii aad rabto beer inaa falad beertii waa ku diyaar bi hadaad wabigiya ku jira maartii shabeelad hoose marka meel iska nacmo badanateed dadkan aad u soo qulqulaan malaayiga qaadisha malaayiga ugu fiican adduunyadan xeebtana laga helaa waxa kala jirta maartii xeebtan gobolka shabeelada hoose waxay leedahay 21 marso waxbay dhul meel oo lagu kaluumaysto bandar wax suubsan way ilaaha nagu maneysay marka aad marayso magaalada dhexdeeda waxa si weyn kuugu muuqanaya haraaga ay magaalada ku reebeen colaadihii iyo dawlad la'aantii muddada ku raagtay waxa ugu sii darnaa muddadii ay magaalada haysatay maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab waxay dadku u yaqaanaan sanadihii xabsiga dusha ka furan ee ciqaab wadareedka kani waa tiirkii toogashada al-shabaab dhalinyaro iyo birmigeeda badan oo ka mid ahaa indhihii bulshada marka ayaa argagixisada al-shabaab halkan ku toogteen iyadoo ay daawanayaan dad nabadeed oo guryahooda qasab looga soo saaray una badan habeen iyo caruur waxay dadka marka ugu necab yihiin in dib loo xasuusiyo waayihii soo maray waa maalmihii ay hoos joogeen al-shabaab waxay xasuustaan in calooshood u shaqaystayaal shisheeye iyo manaxyaal diinta ka been sheegaya ay banaysteen karaamadooda naftooda iyo xoolahooda waxay aad ugu faraxsan yihiin in maanta xor ay ka yihiin al-shabaab oo ahaa wixii ugu xumaa ee noloshooda soo maray kani waa iskuulka ugu weyn magaalada marka waxa uu ii leeyahay xusuus ii gaar ah afar sano oo ka mid ah sooyaalkayga waxbarasho ayaan ku soo qaatay fasaladan qaar ka mid ah macallimiinteedii ayaa weli waxa ay wax ka dhigaan iskuulka waxay u soo dhawar adeegeen xaalado adag si ay u soo saaraan jiilal cusub waxaan aad uga naxay sida iskuulkani u dayacmay dhalinyaradani waxa ay nasiib u yeesheen inay fasal fariistaan taas oo aan suurtagal ahayn sanadooyin yar ka hor
xaaladda waxbarashada magaalada Marka waxa ay u baahan tahay kobcin weyn iyo si waxbarasho ay ku helaan caruur da'yar oo aad u badan oo magaaladan ku nool ilaa laga soo gaaro xilladii colaadihii markay dhaceen dadkii ay ku kala tageen waxbarashada ay baaba'day burburtay waqti xaadirkan la taagan yahay waxbarashada wali sidii la rabay oo ma aha xitaa 10% ma dhama waxbarashadii la rabay inay magaalada hesho dadkii jaamacada marka ka baxay dugsiga ka baxay waagaas ka baxay inta ugu badan waxay fursad u waayeen inay aadaan waxbarasho aadaan oo heer jaamacad aadaan ay waayeen meeshoodii joogeen tuulooyinkooda ku laabteen wixii barakacay ee dagaalada ku barakacay markii xamar galeen nolosha caadiga ah ee markaa la dagaalamayeen baahida ugu badan hadda ay taagan tahay oo dugsidii hoose dhexe dagaalada ku burburay in dib hadda loo dhiso oo aan ka codsayno dawladda federaalka wasaaradda waxbarashada magaalada waxbarashada iskuuladu waa burbureen ardaydii oo ii sheegay dad aan 6 sano iskuul dhigina magaalada ku nool dadkii oo ii sheegay waxa waaye oo iskuuladii waa burbureen dhibaato waxa waaye ii sheegay manhajkii oo hadda oo ka jiray dawladda meesha ma jiro in iskuuladii dib u dayactir lagu sameeyo ardaydiina oo in meesha dhamaantood waxbarashada ay sii wataan teeda kale jaamacadda ummadda in magaalada in la geeyo jaamacadda ummadda sababtoo ah magaaladaas dadkeed waxay u baahan yihiin in loo geeyo jaamacad iyo iskuul lacag la'aan ah jaamacadda ummadda waxaa mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama magaaladii uu nabad ka dhigay dadkiisana aad ugu warqabo jaamacadda ummadda in magaalada la geeyo mar labaad iyo mar saddexaad isbitaalka guud ee Marka ayay isagana ka jirtaa baahi taas la mid ah aad ayuu ugu fog yahay in uu daboolo baahiyaha caafimaad ee dadka magaaladu qabaan mas'uuliyiintii dawladeed ee magaaladan yimid waxa ay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan baahiyaha asaasiga ah ee magaalada ka jira adeegyo caafimaad oo degdeg ah ay dadka magaaladan dalbanayaan yaanahay habeenka gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan degmada Marka dhibaato aan qabnaa xagga haween ahaan isbitaal ma lahan MCAjo firiya oo xaq dawladda ay maamusho ma lahan iskuulaad ay dawladda ay maamusho ma ka shaqeeyaan degmada Marka haweenka waxaan u baahanahay in aan helno isbitaal firiya waxyaabo firiya u baahanahay dawladda aan ugu baahanahay magaalada Marka waxa ay u soo kabanaysaa tartiib waxaa magaalada socda dib u dhis waxaana ka jira dhaqdhaqaaq ganacsi oo kala duwan marka cadde waa soconaysaa waana horumaraysaa sidii ay sanadihii la soo dhaafay ay ahayd ma aha doonto sanadahan hortaayna ah isbedel muuqda ayaa ka imaan doona waxaan rajo weyn ka qabnaa ama ra'iisul wasaaraha uu shalay uu naga ballan qaaday 4 bilood ee ka dhiman sanadkan 19 in la bilaabi doono dekadii weyneedii ee degmada Marka iyo isbuuciidan hortaayna ahba eelboorka degmada Marka in la howlgeli doono inta uu naga ballan qaaday sidoo kale isbitaalka weyn ee degmada Marka in horumar laga sameey doono haday tahay dib u dayactir dib u dhis haday tahay dayactir haday tahay iyo qalabeen haday tahayba ayadana 4 bilood gudahood wuxuu yiri isbitaalkan waxaad arki doontiin isbitaalada ee adduunka la tartami doona marka rajadaynu boqolkiiba 9% rajo weyn ayaan leenahay inkastoo ay tahay mas'uuliyadda dawladda in ay ka bixiso adeegyada aasaasiga ah haddana dadka magaaladu waxa ay fariin u dirayaan qurbo joogta ka soo jeeda Marka kaalin weyn ayay ka geysan karaan horumarinta magaaladooda kulley qurbo joogtu door muhiim ah bay ku leedahay guud ahaan horumarka Soomaaliya gaar ahaan degmadan qurbo joogta ka soo jeeda doorka ay ku yeelan karto waxa weeye meeshaan colaaday hadda ka soo kabsatay waxay u baahan tahay in dib loogu soo laabto waxay u baahan tahay in la maal gashado waxay u baahan tahay iskuulaadkii iyo waxbarashada in la soo nooleeyo oo qurbo joogtu ay timaado waxay u baahan tahay in dadka deegaanka joogay oo aan magaalada ka bixin ilaa haddana ku sugan la dhiirigeliyo
magaalada dib u dhiskeeda la bilaabo magaalada kolley rag baa ka soo shaqeeya amnigeeda iyo mataqaanaa horumarka intaan la eg maanta inay gaarto markaas waxaan leenahay qurba joogtu ha yimaadaan magaaladooda ha maalgashadaan deegaankooda mataqaanaa fursado badan baa ka bannaan fursadahaas oo ayakana faa'iido u noqon kara dadka deegaankana shaqo abuur u noqon kara waxaa waaye fariinta u diraayo qurba joogta reer Marka dadka waa labo dadna magaalada inay wax ka qabtaan ay ka shaqeynayaan dadna magaalada waxa u maleysaa inay ka amsan yihiin walaalaha wax qabadka Marka Cadey oo dhisay darjiinka boondidii oo xaafturuusiyo iyo wax badan inay ka qabtaan hadda ka shaqeynaya waxa aad iyo aad ugu mahadcelinaya walaalaha wax qabadka Marka Cadey waxa leeyahay hawsha wadaan sii wada dadka reer Marka Cadey dhammaan waxa uu baaqayaa in magaalada Marka dadkiisa dhisto madaxweynaheena magaalada nabad noogu dhigay anaga waxa naga rabaa inaan ka shaqeyno dib u dhiska iyo magaalada inay nabad inaan sii ilaalsano sanadkii tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa booqday magaalada oo amnigeeda ay sugeen ciidanka 14 Oktoobar ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ciidankan iyo imaashiyihii madaxweynaha ay dadka Marka u arkaan inay albaabka u fureen nabad iyo xasilooni ka islaaxda magaalada Marka reer Marka abaal gaar ah ay u hayaan madaxweyne Farmaajo oo dadaal weyn geliyay dhamaynta colaadihii beeleed iyo joogitaankii argagixisada al-shabaab oo si buuxda looga sifeeyay Marka Cadey magaalada Marka waxa ka jirta nabad baaxad weyn oo fiican oo aad u fiican magaalada Marka nabadeed waxay ku timid madaxweyne Farmaajo khayr Allah siiyo madaxweyne Farmaajo magaalada nabadeed waa ninka aad ugu shaqeeyay oo inay dadka nabad inay ku noolaadaan shacabkaas inay dadka sidii u noolaadaan waxa ka shaqeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka shacabkan aad iyo aad ay ugu duceynayaan sababtoo ah dadku waxay raadinayaan nabad haddana magaalada waxa ka jirto nabad fiican waxa suurtagelay markii ugu horeyso amniga degmada Marka Allah subhanahu wa ta'ala kadibna waxa suurtagelisay dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa suurtageliyay amniga ka jira deegaanka Marka ama degmada Marka nabaaxigeedaba iyo dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ah geesiyaasha dalka ayaa suurtageliyay inay carqaladeeyaan ama dhibaateeyaan nabadiidka shacabka reer Marka dib u heshiisiin aad u ballaaran ka dhacday oo uu soo dharaandiri uu keenay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa keenay anaka odayka ahaan waa qaadanay waan isku nimid aad iyo aad ku baahsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad iyo aad u mahadsan tahay dadkii sida isku keentay 6 sano waxaan ahayn anaka dadka siyaasadda maanta ku xanaaqsan markay dawladnimada hayeen dagaal iyo rabshan ku jirnay markii alka soo gashay dawladda nabad ay soo gashana noloshii waa ka dhabaysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo noloshii waa ka dhabaysay laakiin waxa way ballanqaadkii shabeellada hoose aad u qaadi weli nama soo gaarin laakiin adiga ku rabnaa baan aragaaga rabnaa sida aad noogu timaadid haddana waxyaabihii kale dhiman aan kugu darno wallaahi madaxweyne Farmaajo khayr Allah siiyo maalinta ugu horeyso magaalada oo soo gaaray aad iyo aad aan ugu faraxnay wixii ka dambeeyay jawi cusub aan galnay nolol cusub hadda ku jirnaa madaxweyne Farmaajo aad iyo aad u mahadsan yahay wax weyn oo ka qabtay magaalada shacabka dhan way u mahadcelinayaan mar labaad in uu soo noqdo barnaamijka soo celiya aad baan u jecelnahay ciidanka 14 Oktoobar waxa ay sugaan amniga Marka ayagoo kaashanaya bulshada taas oo keentay in reer Marka ay ku noolaadaan xasilooni waa ciidamo u wanaagsan yahay habdhaqankooda iyo tababarkoodu waxa ayna fuliyaan roondooyin howlo aan kala go'o lahayn oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Marka waxaad xaqiijiseen ciidanka Soomaaliyeed wixii loo aas-aasay oo ahaa difaaca dadkiisa iyo kaalmeynta dadkiisa inaad ka soo baxdeen oo magaalada dadka jooga kulli ay hadda ay idin amaanaan ay yiraahdaan waxay ciidan nidaamsan oo discipliin leh oo Ilaahay yaqaana oo astaantii qaranka wata oo qofka weynna kaalmeynaya qofka dhibka wada ama magaaladan dhibka u keeni karana ka qabanaya
runtii waa magacii aan sugaynay iyo astaantii lagu yaqaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sanado badan oo xasilooni la'aan kadib Markacadey waxa ay ku soo noqonaysaa sidii lagu yaqiin. Dadka magaaladuna waxa ay rajo weyn ka qabaan in dadaalada dawladnimo ee socda ay horseedaan nabad iyo xasilooni waarta oo magaaladan iyo guud ahaan gobolka u horseeda horumar dhinac kasta. Markacadey,